booliska gaadiidda diyaaradaha magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway ayaa gacanta ku dhigay haweeney iyo nin la socday kuwa oo si public ah galmo ugu sameynayo halka laga soo degto garoonka diyaaradaha magaalada Oslo. Labadan qof ayay boolisku sheegeen in ay gacanta ku dhigeen iyaga oo ku dhex sugan faldambiyeedka lagu soo eedeeyay ee ah in ay meel bulshadu buuxda ay galmo ku sameynayeen. Waxaana lagu soo waramayaa in ninkan iyo haweeneydan ay galmada public ah ku sameynayeen albaabka laga soo baxo marka garoonka diyaaradaha laga soo degto. Waxaana lagu soo waramayaa in goobtaas ay tahay meel ay basasku ka baxaan iyo albaabka ay dadka marka ay ka soo degaan garoonka ay ka soo baxaan. Dadweyne ku sugnaa goobta ayaa si degdeg ah oo la xiriiray markii ay arkeen dhacdadan, halkaasoo ay dad badan ku sugnaayeen, gaadiid badanna uu isku agmarayay oo basas ay ugu badnaayeen. Waxaana lagu soo waramayaa markii ay boolisku yimaadeen in ay labadan qofood kala qabteen, gacantana ku dhigeen una taxaabeen xabsiga, halkaasoo su'aalo lagu weydiinayo. Arrintan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dad badan ay mucjiso iyo layaab ku noqotay maadaama goobtu ay tahay garoonka diyaaradaha magaalada Oslo. Dad badan oo isugu jira dad u dhashay waddanka iyo kuwa sidoo kale kala duwan oo dalal kale ka imaanayay ay halkaasi aad u buuxeen. Waxaana lagu soo waramayaa in goobtu ay ahayd mid aad u saxmad badan, labadan qofoodna ay ugu talagaleen in si public ah ay galmo ugu horsameeyaan dadkaasi. Taliyaha howlgallada booliska Rune Isaksson ayaa isagu ku waramayo in labadan qofood ee galmada ku sameynaya meesha public ah ee dibadda garoonka diyaaradaha magaalada Oslo ay hadda xabsiga u taxabeen, halkaasoo su'aalo lagu weydiinayo. Waxa uuna Isaksson intaa ku daray in labada qofood ay kala ahaayeen wiil 20 jir ah oo ka soo jeeda deegaanada waqooyiga Norway iyo haweeney 40 jir ah taa oo ka soo jeeda deegaanada bariga dalka Norway. Waxaana lagu soo waramayaa in labada qofood galmada dhex maraysay ay ahayd mid ay raalli isaga yihiin sida ay u muuqatay, oo aysan jirin xoog iyo qasab dhinac ka mid ah labada qofood ka timid. Booliska ayaa sheegay in ay hadda kiis ka fureen dhacdadan la yaabka iyo amakaaga leh, taa oo ay sheegeen in ay hadda wax ka weydiinayaan labadii qofood ee ku lugta lahayd dhacdadan la yaabka, mucjisada iyo amakaaga badneed ee ka dhacday albaabka geedida diyaaradaha magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Halka warka kiisa ugu doorkanaan uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.